raaciyay ninkan عبد الرحمن ninkan دبل مثل لا leeda إسلي ka mid ah كسب حجرة حسني oo إسلي Nairobi laga إسلي soo إسلي baxay ha إسلي متك كسب حنا شيء isli waa soo baxay waa Yusuf Xasan يوسف حسن indhagamo ولقي يوسف سوق حسن شوقي وكا تقول ما بكبح saddex markii saddexaad waay hadda xildhibaan uu soo baxay marka intaas natiijada kuleyta hadda waa la yiriyoojiyay saacad ilaa saaki wax oo ku darsamay ma arkin حسنيو tumayna sagaal نظيف نوع صباح سما yaa wah نظيف نجالس وكا صباح سما khaliif ma dhale نظيف 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 nadiif niyo waa la sheegayay weli laakiin lama shaac bixin nadiif jaamac gafana ahaan gafanaha gaarisa ها ها waa la قبنا جالس sugaya ها laakiin weli xataa gabadhii faadumo geedi iyo inay kursiga gabdhaha ay kusoo baxdaan loo sheegaya laakiin shacbi weli toos looma shaacbin sida lagdheera iyo hadda aadan bare ducaali kursigiisa lagu shaaciyey camal lama shaacinin marka waa sugaynaa adu doorashadan iyo waxaa u malaysaa in oo aad la isugu dhadhow yahayo 100,000 iyo oo hal constituency ba kasoo bixi karta meelaha gudaha kenyaati xaggan kalena u meelanaysid inay haddii gobolka soomaalida iyo gobolada kore أدي dadkooda كلمة iska جدا yihiin أصنيو meesha hadda gaariso kale maya aniga kasmaayan joogaa أوكي أمانك ها لعل عبسيدا وحنا أفريكان واي أضدك أودا حين وا wallaahi وركم cabsida niyo عض واي hadda مركا aada loo adkeeyaan dhahayo dadka عبسيدا إنه دجال الله إنه ودنك هاللاوا أو عادفت إيو سنعاب وجنا ملقى يابا barnaamijka waxaa jira mataqaanaa oo qoladan ruto kasoo horjeeda ruto wuxuu xayeysiinayaa dadka wuxuu leeyahay 3 famili inay weligeen madaxtinimo isuba bedelaan xaq ma aha asaga reer ahaan oogama jeedo 3 famili mid uu ku fami oo reer ahaan kor kuleeyahay jiro familka Ramoy oo kale Moy familkiisa ma asaga waa Moy ay isku cid yihiin oo Kalenjin waay Moyna markay Kalenjin yahay Nandi uu ka yahay Ruto ninkana wuxuu ka yahay Kalenjin Tugen Daniel Arap Moy marka saas inta wuxuu ka hadlaa asaga familka ilmo Moy uu ka hadlaa Moy iyo ilmihiisa iyo Kenyatta iyo ilmihiisa iyo Odinga iyo ilmihiisa inay dalka weligood ayaga iska keen haystaan ma ahan uu leeyahay saas uu ka beengarina marka waa inaan ka dhiidhinayo uu leeyahay dadka kale xaqay u leeyihiin inay ayagana wax noqdaan annaga ma waxaan nahay روتو ayagana waan مسألة qabsanaya Ruto baa saas ku kambeyngareynaya ha macnaha Uhuru Kenyatta waa tuu madaxweyne noqday wiilkiisa haddana madaxweyne noqday Raila aabihiisa madaxweyne ku-xigeenka ugu horeeya ah haddana Raila wax loo rabaa Moi ilmihiisi waa Raila la jiraan walada iyagana teeramka ku xiga lagu ballamay in oo Moi ilmihiisa Gideon Moi oo kale lasoo sharafo marka barnaamijkaas wuxuu dhahay dadkaas uma xirnaan karto waa inaan annagana xaqeena aan ka helnaa marka barnaamij noocaas uu Kenyaatiga ka dhaadhiciyayo anigana saboolnimadan idinka bixinaayo dhahay reerkaasna waa canshuura xoolahooda oo beerahooda in la canshuura ma rabaano dhulal badan ee dalka ay xoog ku qabsadeen oo maaragtay marka dalka wixii saxdana waa soo celinaya ay laheen wixii ay leeyihiinna waa loo daana waana canshuurna waa laga qaadayo dhahay marka saas هذا واحد asaga أركان aad حسنيو هذا واحد سودة شيء نيكل لورنتيني بقى وحنا سرية 0.2% روين لون دينجا نيكل هذا سودة شيء tiifigee وريهين waay tiifigee waay ما هذا واحد سوق قاطع عطوش سوق قاطع سوق وكسوق قاطع عطوش meequu sheegay tirada meeqaba marka inay dambaysiin kala ogaanana tirada وحواي meeqa waay 49 اوكي البرسنتج كو شيغا ترى واسك دفتر tiradaan rabaa tirada ترى percentage اوكي mar سوق walba ترى كو شيغا سوقيا ترى دي هو ترى هوسيسا عقل اديك 5 مليون شيغي نو اكشلي هو معقول 5 مليون ما maya wax يقارن dambaysa maya way dambaysa taas marka wax dambeeya waa mar hore soo qaatay macnaha اوكي hadda حسني 5 milyan 5 islaam مليون انا boqol mare بمودا 5 مليون انا باركي هذا حسني هوس حسني maxamed ها برادر waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama labada TV ee ugu weynay ee Nation iyo Citizen ay ku kala qaybsameen doorashada meesha ay marayso bulshada indhaheedana waa TV-ga iyo social media bal kawaran haddii TV-yada hormud ka yihiin qalaasaha iyo maxaa la lahayay iyo yacan ka been sheegida doorashada bal xalka soo noqon doona oo Kenya ku soo xusnay niyo waxyaalaha hadda laga warramaya ka mid tahayba in idaacaduhu meel isugu yimaadaan oo hal war tabiyaan marka waxaan malaysaa inay kula horma midda kale midna waa idinka dhacaya oo aan idinka hilmaamin ninkan Uhuru Kenyatta war waxaa laga hayaa hadda kahor inuu dhahay tuug dalka kuma wareejin karo tuugna wuxuu kaga jeedaa William Ruto marka barnaamijkaasna aaday dadka uga cabsanayaan
maadaama Uhuru uu inuu leeyahay inqilaab sameeya Uhuru ba inuu leeyahay ninkaas wax kuma wareejin kara camal marka Yo, waa Xusniyow, ha Kenyaanka wanaagsan Kenyaanka majority maaragtay William Ruto way ka cabsadaan moogta gaangis ay u malayaan soo moogid sababtoo ah hataa waxaa loo xiriirinaya yarkii Soomaaliga ahaa ee ka tegi jiray Mareykanka ganacsi baa kala dhexeeya moogta marka dad badan ayuu ninkan Bashir assassination ku dilaa la Bashir dhahno ha dad badan oo assassination marka Bashir Kenyaanka way ka Gobo baqaan anigu leeyahay William Ruto ma fahad marka waxaa macquul ah in ninkaas macnaha loo diido William macnaha Ruto war waagi ninkan Moi William madaxweynaha Ruto ahaa la dhahay waagi Moi xoogsan kuma islaamnimada maqladaniyo Ruto xoogsan khadka islaamnimada ma sagaaji tiraahdo waagi islaamnimada madaxweynaha William Ruto maaragtay Moi Daniel Armoy markuu madaxweynaha ahaa William Ruto wuxuu ahaa wasiirka madaxtooyada u ahaan jiray nin aad u awood badan oo ah maadaama dowladdaasna uu qaraabo la'aa Moyna waa nin kalanjiin ahaa marka wasiirada ugu awood badan asaga iyo Nicholas Biwott iyo dadka waxa waaye birta oo waxay ahaayeen dadka loo dhiibay ahaayeen oo meel saaran magar oo dowladdaas wax badan ugu tiriyo inay dad badan inkastoo nin yar uu ahaayo barnaamijka marka uu siyaasadda kusoo biirayo marka xildhibaanka loo doortay Eldoret meesha hadda uu xildhibaan ka yahay aagaas marka wax walba waa suurtagal laakiin waxa aad uga cabsanaya marka shacabka laga baxo dadka madaxdii hore soo maray sida saddexdan famil aad bay uga cabsanayaan familkii Moi way ka cabsanayaan familkii Kenyatta iyo familka laakiin waxaa been u sheega ayaga oo arrintaas been baad sheegaysaan dhahay Uhuru oo kale waa nin reer Gatundu South ayuu ka codeeyaa Kiambu district countiga Kiambu marka boqolkiiba 60 camal waxay u codeeyeen Raila bahash waxay u codeeyeen William Ruto Uhuru been baa noo sheegaysaa ile marka Kikuyada waxaad u malaysaa ama dadkan Mount Kenya la isku dhaho Gema marka Kikuyu iyo Ambera iyo maaragtay Wameru hal qabiil oo waxaa la isku dhahaa Gema la isku dhahaa ama Mount Kenya la isku dhahaa gobolka dhexe deegaano isku jirka ama Eastern ay degmooyin iyo Rift Valley Naivasha oo kale marka qabiilkii waxaad u malaysaa boqolkiiba 70 inay William Ruto aadeen meeshii Uhuru oo kala kukuyadii sooma Uhuru okay barkiisa way diiday su-aasha Uhuru waxay wuxuu tahay Soomaalida ayagoo og maxay Raila ku raaceen Soomaalideena ee laakiin wareersan Xusniyow ee aan haddii xisaabtamin boqolkiiba 70 maxay ku Kukuyada raaceen ay Soomaalida Raila saaxiibow Bashir waxay isu Xusniyow haddii boqolkiiba 70 ay Kukuyada ay carartay soo lama rabin marka inuu William Ruto lambar badan uu ku hogaamiyo doorashada war xoogsada waxaaban kuu sheegaa nambarkan badan oo hadda lala yaabaya waxa keenay hoose Kikuyu ma ninka Raila sideeda waxaa laga taageeraa Western Kenya xaggan kale Mombasa Coast Eastern iyo gobolkan macnaha Mukambada iyo maaragtay Nairobi asaga ku horeeyay laakiin hadda Nairobi xataa waa lala qaybsaday oo wax fiican oo kasoo helay ninkan hadda waayo William Ruto u helay marka waayo u helay Kikuyada the oo u reason why u badan helay ma taqaanaa Xusniyow yeah. reason why u helay macnaha dadka nacayo maamulkan macnaha oo u sheegay aniga waxaa isagay campaign fiican Raila ma ogtahay dowladii hore loogu dadku dadkana waxa weji cusub ay iska jecel yihiin wuxuu asaga ku campaign garaynaya inuu siyaasadii Kenyattana sii dhisi doono oo waxyaalo badan marka familadan oo maaragtay dalka isku soo bedelaya xoolaha dadka waxaa u malaysaa inay yara nacayaan the famil cusub Kenyatta ay Uhuru Kenyattana Raila Kenyattana garabkiisa uu ka baxay Uhuru ninklayada Xusniyow haddii uu kaga gedisto gabar hadda maxaa la samayn doonaa haddii Uhuru uu ka gediyo oo ugu shubo Odinga muxuu samayn karaa saameyn uu William Ruto la imaan karaa wallahi horta taas gadiskani way jirtaa taas cabsideeda Rutona wuu sheegay ciidamada booliskana mar hore laga degay guddiga doorashooyinka xataa qaara ku dhex jiro inay ku shubtaan Uhuru iyo Raila aad iyo aad baa looga cabsi qabay marka ma garanayo sharciyaqaanada iyo wax yar u kaadi Xusni dib Ruto haddii uu ku gedisto oo hadda Uhuru ku shubo ninkan ugu shubo William Ruto reerkiisa iyo macnaha dadkiisa maxay saameyn oo Kenya ku samayn karaan wallahi horta xataa waxaa la leeyahay William Ruto xataa hadduu guuleysto reer Mount Kenya hogaamiyaashooda ma jecla hadda waxaa la yaabay hogaamiyaal aad loo tixgelinayay Kikuyada dhexdeeda xildhibaannimo xataa qaar way waayeen oo William Ruto ayaa laga jeclaaday marka waxaa u malaysaa shacabka iyo hogaamiyaashooda inay kala duwanaadeen oo isku meel ay wax u wadin dadkii wax la waday Raila
oo hogaaminaya hadda waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka qofta u taagan oo Bi Martha Karua degmada ay kasoo galaysay countiga waxaa la yidhahdaa Kirinyaga district county waxaa ka horeeya 80% William Ruto marka wax badana shacabka iyo hogaamiyaashii Mount Kenya gabadhi oo marka cilmiga deegaanka oo Nobelka heshatay oo deegaanka wasiirka ahaan jirtay Nobelka waa baqtida taas mar Martha hore Karua baqtiday Martha Karua waa ma baqsinaa Martha Karua waa joogtaa waa wasiir bay war ahaan jirtay dowladii Moi iyo Kibaki wasiir bay ahaan jirtay marka waa islaan in badan siyaasadda ku jirto xildhibaan xaggaas Kirinyaga kasoo gasha siyaasaddana mar bay xataa madaxweynaha soo sharaxday kastoo wax fiican helin haddana madaxweyne ku-xigeenka marka waxaa la lahaa wax badan baa laga marka aad bay waxa weye dhulka oola dhaceen islaantii oo maaragtay dadkii Kikuyadii Raila waxaa u malaysaa col hore miya ma aqaane mise William Ruto Kenyatta bay u xanaaqsan yihiin wax u sameen wax badan bay ra'yigii Kenyatta ka diideen oo Ruto bay gabadhaas ma Kikuyu hidmi ayada reerkeeda Kikuyu waa Kirinyagadan kuu sheegay Nyeri iyo Muthaiga iyo maxaa la yidhahdaa Kiambu iyo waa Kikuyu dhulkan gobolka dhexe waaye oo Central Province la waayo marka Soomaalideena maxaa la waalanay oo meeshaas nagu riday adaa Soomaali ah meesha jooga hogaamiyaashooda maaragtay